waxaan hortiina ka naadinayaa muwaadiniinta sharafka leh dadka shacabka Puntland iyo gudaanba shacabka Soomaaliyeed aan warbaahinta u marinaya inaan u taagnahay mansabka madaxweynaha iyo waxyaalaha laga maarmaanka ah in lagu tallaabsado. tan saddexaad waxaan taaban doonaa oo aan wax ka iftiimin doonaa sida ay la tahay sida ay ku dhici karto doorasho xalaal ah. tan saddexaad waa naado waa dhawaaq aan naadin doono waan idin maqashin doono muwaadiniinta halka fadhiga sharaf kale iyo dadka Soomaaliyeedna aan uga tabin doono warbaahinta. haddaan ka hormaro xaaladda guud ee Puntland iyo say ku sugan tahay waxaan xoogga saari doonaa ama iftiimin doonaa 4 arrimood oo muhiim ah oo madhaafaan ah. tan koowaad waxaa muhiim ah inaan xasuusino in laga bilaabo sanadkii 2004 ay deegaano ka mid ah gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ay ka baxayeen gacanta Puntland. ugu dambeyntiina bishii Oktoobar ee sanadkii 2008 ay Somaliland u suurta gashay inay gacanta ku dhigto magaalo madaxda gobolka Sool muxuu ahaay Laascaanood. muddadii 5 sano ahayd ee uu talada hayay maamulka hadda jira waa lagu guulaysan karay in nabad iyo dagaalba lagu soo xerageliyo deegaanadaas taasoo aan dhicin. waxaa hubaal ah inaan madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole aanu sheegan karin wax dadaala oo u galay dib u soo celinta deegaanadaas. dadkii deegaanadaas markay ka qusteen maamulka ay iyagu si aqlabiyad oo uga dhisteen waxay u guntadeen inay iskood isu abaabulaan oo isu taagaan qadiyadda soo ceshada deegaanada ka maqan. waxaa ayaan darro ah inaan madaxweyne Faroole waxba ula harin inuu dhabar jabiyo inuu kala dhantaalo dadaalkii dadweynahaas. si kale haddii loo yidhaahdo waxaan oran karaa nuxurka siyaasadda madaxweyne Faroole ee ku aadan gobolladaas waxaa lagu soo koobi karaa ma aha hawl iyo taal. shacabka deegaanadaas uma istaagi karaan qadiyadda soo celinta deegaanadaas. intaa waxaa ka sii daran wuxuu madaxweyne Faroole u arkaa oo siyaasaddiisa nuxurka siyaasadda ka mid ah codadka xildhibaanada deegaanadaas waa codadkii aan ku dhaafay tartamayaashii doorashadii aan ku guulaystay waana taan hadda u tabaabushaysanayo inaan ku dhaafo tartamayaasha aan ku loolamayno xukunka. arrinta labaad ee aan doonayo inaan iftiimiyo waxa weeye oo u baahan in laga bogto waxa weeye cillad ku soo noqnoqotay Puntland tan iyo bartamihii sanadkii 1980